السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga waa idin salaamay meel walba dunida daafiniisa ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeeni Najma Beauty qalbi furan iyo furan insha Allah haddaad hore noola joogtay noo soo dhawow haddaad hadda nagu cusub tahayna noo soo dhawow subscribe ka noo saar like ka noo saar insha Allah saad ula socotid wax allaala waxa barnaamijyo soo galino hadduu ilaahaygi waaxid ku weynaa ka raali noqdo الحمد لله إلهي واحد كينايم هذا الشكر والسقناطي واسكو سكن عليه أنا كعافمات قبله مرة لواد إما سد هذه مرة فراد ولا له يوم ما توحينوها يا أرير وفائدة وأنا جاء سويدي وأنا كأركي قلاد أجنبي جاء وحيابها أي سميان هدان وحيال فربضان ورسالة فربضان أن سميي وحياله أن سوق وقاذي وحياله أن صاحلي باربين أن يلشر قريو إن شاء الله وحانا رجينا يا إنا تكفى إذا ستان هدو إلهي واحد كوينا كرا لنقضه إن هداد حيسين يسد برنامج كان فيديو قد ما يسو إن شاء الله مركز لما يستنا سبسكرايب صار هداد سبسكرايب وهين لايك كلا صار إن شاء الله كومنتينا هداد كهشي نوري ما شاء الله تبارك الله أصحابي ما أنتم حكحلينا إن هو يدا إنتي سنقوري يالين محل لوغ باهني هاي إنا يسميسو sayna isku diyaarinaysaa hab noocay isku diyaarinaysaa intaanan u gudbin barnaamijka waxaan u baahanahay inaan waxyar idin sheego oon iswareysano oon is soo xasuusino maxay tahay waxaan is soo xasuusinayno waxay tahay walaalayaalow kalsoonida nafteena inaan horta marka hore kor u qaadno insha Allah walaalahaygiyo waxaa isweydiinaa anaka markaan uurka leenahay gabdha Soomaaliyeed hadaan nahay anaka uurka markaan leenahay hadaan gabdha Soomaaliyeed nahay meel walbo adduunka ka joogno ajnabiyada kale oo nala nool maxaysan u walacin maxaysan wareer u dareemin maxaysan lazy u noqonin maxaysan ilmahoodii adduunkooda u qabsan karin oo ay markasta active u yihiin hadaa isla walacno qof ajnabi ah ajnabiga ilaa isagaalka bilood uu digleynaya wuuna socdaa wixiis idantiisana uu qabsanaya anakana the first oo 3 month ku horo trimesterka waa soo dhaceena dhulka yeelna ilaa 5 bilood okay arinta ayada amis weydiinay maxayna ku dhacday maxayna ku suurta gashay ilaa wax ay nooga duwan yihiin malaha إلهي واحد كوينا سو أيك أمو أنا كنا نقومي دينت بقى كلا دونا هاي مركا تايد وسؤال أريد ويدي أصحابي إن شاء الله مركا وحيابه هي سميان وين السمينه وسكرت عن كهلما وزدكم وضد نفط هذا الجعل ولا له عن شحنة هاي قبل أنت يسمعوري لنا waxaa looga baahan yahay inay dadaasho inay soo fikirto inay haday daawooyin isticmaalaysay family banaanen isticmaalaysay sida cirbada garabka la geliyo kale IUD oo kale cirbada oo kale tan 3 bilood oo kale whatever waxay isticmaalayso dhan waa inay horta complete soo dhahdo ee dhahdo dhan waxa waa iska dhaafaya hadda waxaan isku diyaarinayaa inuu ilaahay waaxid ku inaa wax isiyo okay lambarka u horeysa gabadha maxay sameynaysaa waa inay wadaadkeeda la tashato ileen ilmuhu waa lagu la dhalaayay inaan kaligeed wax raadinama ahee waa inaan la fariisano dhahno walaalow miyaha sanadkan ilaahaygi waaxidka weynaa dhankiisii baan waxaan u xareysanaynaa application hadduu ilaahaygi waaxidka weynaa noo ogolaado okay waa isku waafaqdeen waa heshiiseen waa isku afgarateen وقلت جوا الحمد لله حفيرين أنت برنامجك كسيس عنين هل بعدين كلت لنا يا مركان ساس كلها هاي وحيت هاي ورت واحد هذا ليس إن اللي قولها هذه وفي عنت هاي المهي وناك فرحان لو علي المهي قايل يبوق لو علي ويكلت هاي فرحان هذا يقيمه هذا المها حتى مسكح هذا يكورنا يعني المهي وناك لو على هو المها كان كمسكح بدن أو كأقل بدن أو كأكتف سر مركا adiga naftaada fiiriye hooyada markay dhasho waa inuu 2 sano jirkeeda 2 sano ku soo noqdaa oo isku soo qabsataa adigu ha fiirinin heblaaya 5 iyo heblaaya 6 iyo
heblaayaa 4 la iyo heblaayaa 2 la iyo heblaayaa 10 la iyo ha fiirini waxaas adigu naftaada ku qanacsanow wuxuu ilaahayga waaxidka weynaa ku sii ku qanacsanow balaanka adiga naftirkaada samayso caafimaadkaada ka tali caafimaadka ilmahaada ka tali ha ku mashquulin ilmaha iyo dadka kale iyo heblaayaa dhashay every single year waa dhalaaya iyo waxa iska jooji kalsoonida naftaada kor u qaad intaa waa iga dardaaran marka haddaan barnaamijkii usii soconno marka u horeyso wadaadkaadii baa la tashatay marka labaad dhakhtarkaadaad u tegaysaa waad la fariisanaysaa ballanaa samaysanaysaa waad la fariisanaysaa waxaad leedahay dhakhtarkaygiiow waxaan u baahanahay inaan sanadkan 6 bilooda soo socoto ilaa 3 bilooda soo socoto inuu ilaahayga waaxidka weynaa wax isiyo oo application dhankiisa u xareysto adiga inaa uur yeesho unbaad iska dhahaysaa insha allah hadduu gaal yahay marka dhakhtarkiibuu ku caawinayaa muxuu kaa caawinayaa caafimaadkaadu baarayaa dhiigagaagu baarayaa fitamiinyadaadu baarayaa waxyaabo fara badan markuu arko fitamiinyadaada hadday loo yihiin fitamiinyo ku siinaya wuxuu ku leeyahay fitamiinyadan cun hadduu ku arko inuu hormonkaada loo uu yahay ood uur qaadi karin wuxuu ku siinayaa fitamiinyo hadduu arko hormonkaada inuu haa yahay wuxuu ku siinayaa daawo hadduu arko hormonkaada inuu loo yahay wuxuu ku siinayaa daawo waxyaabo fara badan uu kaa caawinayaa markuu ku dhaho dhakhtarkaada baaritaan fara badan kadib infectionkii waxyaalaha dhan lagaa sifeeyo baaritaan badan kadib uu ku dhaho waad fiican tahay hadda waad yeelan kartaa dhakhtarkii halkaa markaa ooga soo baxno waa inaan usoo noqono dhankii cuntooyinka iyo waxyaalihii fitamiinyadeeni waa inaan fitamiinyada qaadano waa inaan fitamiinyadeena dheelitirno oo dhakhtarka daawaduna soo siiwa inaan sax u cunno waa inaan cagaarka badsano bariiskan iyo baastadan calool unbay keentaa calooshana way fariisisaa waa inaan iska iloowno waa inaan waxyaalaha aan ka helayno ironka waxyaalaha aan ka helayno folic acidka waxyaalaha aan ka helayno proteinka waxyaalaha aan ka helayno calciumka waxyaabaha waa inaan ka qaraabanaa oo aan raadinaa ilaa waxaan ugu soo socoto hadduu ilaahayna siiyo marxalado kala duwan mar walacaan nahay iyo mar aan uur nahay oon xaamilo nahay iyo mar aan dhalayno okay intaa markaad cuntayaashaada iyo waxyaabahaad qaadanaysa halkaa ooga gudubto waa inaad la kulantid dhakhtarka ilkaha dhakhtarkaada ilkaha waa in ilkahaaga lasoo dhaqo waa in ilkahaaga hadday infection leeyihiin waa in ilkahaaga infectionka laga daaweeyo haddii ilkahaaga infection le uur aa qaado cunugaaga maskaxdiisa u gudbinaysaa cunugana cunug xanuunsan buu kaa noqonayaa okay dhakhtarka ilkaha markaan halkaa ooga soo tagno waa inaad samaysid exerciseka muxuu yahay waxaa kuu soo socotaa muddo 9 bilood ah oo waxyaabaha hadda aad samayn kartood hadhow aad samayn karin waa inaad more exercise samayso waa inaad samaysid orod fara badan waa inaad samaysid alaabaha lagu orod aa ku ordo waa inaad jirkaada kala bixisid hadduu ilaahayga waaxidkeena ka rali noqdo waa kow waa inaad masaaj aadid waa inaad jirka lagu masaaj gareeyo way jiraan exercise oo uurka loogu talagalay oo naagaha uurka keli loogu talagalay oo samayn karaan way jirtaa masaaj loogu talagalay islaamaha uurka leh waxyaabahaasna waan kasoo hadli doonaa insha allah hadduu ilaahayga waaxidkeena ka rali noqdo insha allah walaalahaygiyo marka exercisekii markaa halkaa uga soo tagno masaajka imaanaynaa masaajka wuxuu kaa caawinaya waxyaalo fara badan markaa u tagtid waxaa leedahay waxaan rabaa inaan uur yeesho sanad 6 bilooda soo socota ama 3 bilooda soo socoto waxaan u baahanahay masaajkii qaaska u ahaa dadka uurka leh iyo meelo loogu talagalay baa lagaa masaajeynayaa waxyaabo fara badana ka faa'iidaysaa haddaad ahayd hooyo ilmaha kasoo dilmaan dhaqsi markay uurka yeelatoba soo dilmaan masaajka inuu ku caabiyaa laga yaabaa intaa markaa masaajka uga baxno waxaa sameyneynaa marka maxaa kaloo noo dhiman maxaa kaloo noo haray processkii dhan waa soo marnay wixii dhan markaa soo marnay hooyo healthy baa tahay hooyo healthy waxay dhashaa baby healthy hooyo sickness waxay dhashaa baby sickness because hooyo infection qabto cunug infection qabay dhalaysaa hooyo stress qabto cunug stress qabay dhalaysaa hooyo depression qabto cunug depression qabay dhalaysaa okay ilaahayga waaxidka weynaa wuu kugu guuleysiyey congratulation lagu dhahay you are pregnant wallahi faraha
faraha badnaa ma arkaysid ilaa waa iska soo shaqaysay daawooyinkii aad soo qaadatay fitamiinadaadii aad soo dhistay exercise fara badan aad soo martay cuntadaadii dheelitirneedoo ka samaysnayd fitamiinadii dhan isku kaa keenaysaad qaadatay maasha allah waa hataa hooyo innaba aan caadi ahayn maasha allah tabaaraka allah asxaabteyda halkaasaan ooga baxay hadduu ilaahayga waaxidka weynaa ka raali noqdo waan ka hadli doonaa hooyada barnaamijyada kaloo soo socda insha allah waxyaabaha depressionka xilliyada hooyada ay depression qaado siday uga badbaadi lahayd iyo waxyaabahay sameyn lahayd hadduu ilaahayga waaxidka weynaa ka raali noqdo barnaamijkayga la soco subscribe like share comment insha allah waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iisoo dhawaada qalbi furan niyo saafi ah walaalahayga aan jeclahay ka faa'iidaysi wanaagsan waxaa tala ah iga dardaaran ah hooyo walbo inay ka faa'iidaysato arrinkan asaga ah insha allah haddaan rabno inaan soo saarno ilmo maskax leh ilmo caafimaad leh waa inaan anaka marka hore isdaaweyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ballanteenu waa hooyo walbo ha isdaaweyso ballan ha lahaato insha allah